رئيس الوزراء ayaa waxa booqashadiisa ku welinayay wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya, wasiirka gaashaandhigga, wasiirka maaliyadda waxayna kormeereen goobta uu qarax ka dhacay iyagoo u kurgalay baaxadda iyo waliba saameynta uu yeeshay qaraxii shalay ka dhacay xarunta shaqaalaha ee Turkiga. waxayna warbixin ka dhageysteen shaqaalaha Turkiga oo iyagu goobjoog ahaa xilliga qarax uu dhacay. booqashada kadib ayaa waxa shir jireed ku wada qabtay dhismaha shaqaalaha Turkiga, ra'iisul wasaaraha iyo waliba safiirka dawladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya Kamaluddin. رئيس الوزراء حكومة الفدرال كصوماليا مدن عبد فرح دون ساعد oo goobta hadalka jeedaya waxa uu tacsi u diray dawladda Turkiga isagoo tilmaamayay ammaanka si wanaagsan u sheegi doonaan. ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale xusay in dawladda Soomaaliyeed ay xoojin doonto sugidda amniga si qaab nabadeed ugu fulaan howlaha gargaarka iyo waliba dubdhiska ay dalka Soomaaliya ka wadaan shaqaalaha Turkiga. magaca dawladda Soomaaliyeed magacayga iyo magaca ummadda Soomaaliyeed waxaan ku cambaaraynayaa falkii argagixisnimo ee shalay galab ka dhacay halkan ee ay ku dhinteen dadka tirada badan dadkii noo soo gurmaday oo u yimid inay Soomaaliya kaalmeeyaan iyo dad islaam oo bishan Ramadaan soomanaa oo hawlahoodii caadiga ah gudanahayeen waxay geysteen aad baan u cambaaraynaynaa falalka noocaas waa falal looga dan leeyahay in Soomaaliya dib u kabato dawladnimadeedii hanato مسؤوليتنا أي كده لوجه استاجي waxaan u sheegaynaa inta argagixisada caalamka iyo intii dan moodaysa inay umuurtaas ku guuleysataba ilaahay idankiisa uu ku fayl garoobahayaan waana ummadda Soomaaliyeedna waa ogtahay caalamkana waanu ka kaashanaynaa waana ku faraxsanahay ilaa iyo shalay sidii loogu hortagay iyo waxay damceen iyo sida wax u bedelmeen labadaba runtii aad baa loogu hortagay sida la aliyay waxaan cambaaraynaynaa markale arrintaas waxaan tacsi u diraynaa dhammaan shacbiga aan walaalaha nahay ee reer Turkey waxaan sidoo kale wadaxsiinaynaa dawladda iyo dadka dhammaantood baan uga tacsiinay gaar ahaan qaraabadii ay ka iyo family ay ka geeriyoodeen. safiirka Turkiga ayaa sidoo kale hadal ka jeediyay goobta isagoona sheegay in dawladda Turkiga aysan joojin doonin howlaha ay ka wado dalka Soomaaliya. In front of the place which was attack happened yesterday. This was a heinous and very bad act made by enemy of Islam. People of Somalia should know that Turkey is committed to support brothers and sisters of Somalia. We are here to help. We are here to help our brothers and sisters in Somalia. But unfortunately, what happened yesterday, some people. weerarkii shalay dhacay waa mid aad u falxun. innagu halkan waxaan u nimaanay inaan caawino walaalaheena Soomaaliyeed laakiin nasiib darro shalay waxa dhacay fal aad u xun. falkaasina innagu uma joojinayno howlaha aan ka wadnay dalka Soomaaliya. waxaa jira dad qaar oo jecel inaan joojino caawinaadda aan siinayno walaalaheena Soomaaliyeed. innagu wiligeen ma joojin doono caawinaadda aan caawinayno walaalaheena Soomaaliyeed. Organized in a day of Ramadan and people who supposed to be a Muslim. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale kormeeray dayactir ay shaqaalaha Turkiga ka wadaan wadada isku xilta garoonka Aadan Cadde iyo waliba isgoyska kilomitir 4. waxaana ra'iisul wasaaraha ka dhawaajiyay in dawladda Turkiga ay ugu mahad celinayaan horumarka ay ka wadaan dalka Soomaaliya. waxaan 23 kilomitir oo wadadan laamiga ay noo dhisayaan dawladda walaalaheena Turkiga tan calaamad waxay leedahay kanna wadanka iyaga waa ka difaacaynaa argagixisada caalama iyo cadow gudaha iyo dibadda ku yimaadana dhanka kalena waa ka dhisaynaa. tan waxay calaamad u tahay iskaashiga naga dhaxeeya annaga iyo dawladda Turkiga oo sii xoogaysan doona ilaahay idankiisna tii shalay dhacday aysan waxba u dhihin doonin.
waddadan ayada ahi waa noo furan tahay waanu ku faraxsannahay inaanu tan iyo kuwo kaloo badanba Soomaaliya oo dhanna wada gaarsiino annana hawlaha noocaan oo kala annagoo isla dhanka kale ka difaacayna dhulkayaga dhismihiisana aanu ku mashquulsannahay waana hubaal ilaahay idankiisa Soomaaliya waana kaban doontaa dariiqii kabashadana waa ku taagan Maxamed Ibrahim Gaabo Royal TV Muqdisho.